kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa telefishinka MWTV ku soo dhawaada warka caalamka akhbaaradka ugu waaweyn aad daawad doontaan waxaa ka mid ah wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa shir degdeg ah isugu yeertay culimada ugu waaweyn ee dalka Soomaaliya iyadoo lagu hadlayay dhibaatada uu leeyahay cudurka coronavirus-ka oo caalamka gilgilay masaajidada ku yaala Nairobi caasimadda dalka Kenya ayaa amaro culus la duldhigay khatarta cudurka coronavirus-ka awgi shirka wadatashiga ee Puntland ee ka soconayay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ayaa la filayaa in goordhow la soo gabagabeeyo dowladda Shiinaha ayaa waxa ay aad uga carotay hadal ka soo yeeray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump intaasi waxa ay ahaayeen qodobada warka caalamka ugu waaweyn goordhow ayagoo faahfaahsan aad daawad doontaan caalamka waxa ku sii baahaya khatarta cudurka coronavirus ayadoo marba ka dambaysa la helayo dad cusub oo cudurkaasi u sii gudbayo wadamada caalamka haddaba wasaaradda awqaafta iyo diinta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa shirkan degdeg ah magaalada Muqdisho isugu yeertay culimada ugu waaweyn ee dalka Soomaaliya ayadoo lagu hadlayay dhibaatada uu leeyahay cudurka coronavirus-ka علماء الدين كأيا أوجباقي شعب كالصوماليات إن يكون قانونا صلاتها عوان كان ما أي بديان عبادة ففروا إلى الله قرآن كيس لا خرستو إلى حق سلو دوادو دم بدافع لو يديستو وحكستنا قرآن كجران وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين لبو in laga feejignaado qaab kasto loo qaadi karo cudurkan hasta meelaha dadka ay tagayaan inta badan oo yaani xeebaha u badnaadaan meelaha dadka isku imaanayaan lagu ciyaaray iyo xogaha tajamucaas xogaha yar inuu yaraado saddex in la ilaaliyo nadaafadda guud tan jirka iyo tan deegaanka bay'ada in la ilaaliyo laftigeeda xadiiskan rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa an-nadaafatu nisfu min al-iimaan wasiirka wasaaradda awqaafta iyo diinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Sheekh Nuur Maxamed Xasan ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayay shirku isugu yeeray culimada diinka ugu waaweyn ee dalka Soomaaliya oo shir gudoominayay magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland waxaa ka soconaya shirka wadatashiga Puntland ee kal hore ugu dhawaaqay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani shirkan ayaa waxa khudbadihiisa ay ka soconayaan magaalada Garowe iyadoo gabagabadii shirkan la filayo in war murtiyeed laga soo saaro magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya waxa ay ka mid tahay meelaha ay ka jiraan khatarta cudurka coronavirus-ka kadib markii dowladda Kenya ay sheegtay in qeyb ka mid ah dadka ka yimaada waddanka Mareykanka oo gaaray waddankaasi Kenya laga helay kiisas ku saabsan cudurka coronavirus-ka haddaba sidee looga hortagi karaa dhibaatada khatarta cudurka coronavirus-ka ayaa waxaa amaro lagu soo rogay masaajidada lagu cibaadeysto ee ku yaala magaalada Nairobi ee waddanka Kenya warkaas aad ka daawanaysaan waa MWTV ugu dambeyntii dowladda Shiinaha ayaa aad kaga carootay hadal ka soo yeeray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump xukuumadda Beijing ayaa sheegtay in ay aad ugu carootay hadal uu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray madaxweynaha dalka Mareykanka asagoo uu ku tilmaamay cudurka coronavirus inuu yahay viruska dalka Shiinaha warkii caalamka aad ka daawanayseen telefishinka MWTV waa naga inta